بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيارتو إداواني سايميل والبي قور والبي حل والبي دينتا وعنا وناكسنا يا إذن ليها وانيقو آسعدكي مصطفى محمد علي آلا بانا كلا سو هذا هالكان دوبي ميديا إي ام دوبي بران كلنا سوشيال ميديا قضبضا سياسة دالكين هوي أيا نوغا براتين kuwii ugu dambeeyay asleena bulshada way xiisagelinayaan qodobada aan soo xulnay isla markaasina aan rabno halkan in kala soo wadaago waxyaabaha dalkeena hooyo ka jira waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya hadalla ay jeediyeen warbixin aanu ka diyaarinay xamse cabdi barre oo ra'iisul wasaaraha 12aad loo magacaabay doobiya meediya MDB anigoo Mustafa Maxamed Cali ayaan kaga soo jeedin doono roble ra'iisul wasaarihii ilgaarsiinta iyo gudoomiyaha ONF iyo wafdi oo la kulmay maanta maxay ka wada hadleen dadkii ugu tirada badnaa ee barakacayaal ah oo shabeellaha hoose ka soo barakacay soona gaaray duleedka magaalada Muqdisho oo xaalad adag haysato ergeyga gaarka ee albaaraha madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay oo gaaray buulo burti muxuu halkaasi socdaalkiisa yahay warbixin aan ku diyaarinay qayb ay ka noqon doonta baarlamaanka maanta kulankoodu muxuu ahaa isla markaasina maxay kaga hadleen warbixin ayaan soo diyaarinay halkaan aan ka soo jeedin doonaa danin oo maanta kalfadhigii kontonaad ee golaha wakiilada Puntland ka furay garoobe warbixin aan ku diyaarinay qayb ayay ka noqon doontaa marka laga soo tago dani kulankiisii maanta ay garoobe waxyaabaha kale waxaa ka mid ah Muuse Bixi oo ka hadlay arrinta la xiriirto tarsan shalay ka bixitaankii shirkii Nairobi ee Uhuru Kenyatta uu ku casuumay safiirada halkaasi fadhido qodobada kale ee doobiya media idiin haynana waxaa ka mid ah suxufiyiinta madaxa bannaan ee warbaahintaasi ka howlgalo oo loo diiday inay soo tabiyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha qodobadaasi ayaa anigoo Mustafa Maxamed halkan kaga soo balbalaarinaya ee u diyaar garooba ayagoo dhameystiran maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hogaamin doono wuxuuna u magacaabay xamse cabdi barre waxaana uu madaxweynaha sheegay in uu fiiriyay magacaabistiisa isla markaasina qodobka 9aad uu cogsaday asigoona sheegay in uu xamso ku doortay inuu yahay shakhsi u arko in uu hogaami karo dalka maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2022 waxaan si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa da ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane xamse cabdi barre oo garabkayga midigta taagan waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane xamse ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara intaasi kadib waxaa hadalka qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee la magacaabay xamse cabdi barre isla markaasina kaga mahadceliyay madaxweynaha magacaabista oo magacaabay asigoona sidoo kale shacabka iyo baarlamaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in ay ahaadaan kuwa la shaqeeyo isla markaasina si dalka loogu samataxiyo waxyaabaha hortaagan ku gudban qaadaya adiga madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadaya in aan shaqayn doono hari habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo ay ugu horeyso kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid shakhsi 48 jir ah kuna dhashay ayaa la yiray warar kala duwan ka soo baxay Kismaayo ama kilinka shanaad inkastoo la xaqiijinin wuxuuna waxbarashadiisa ku qaatay gudaha dalka asigoona ka mid noqday isla markaasina waxbarashadiisa heerka koowaad ee jaamacadda Yemen uu ku soo qaatay marka kalena uu Malaysia bahda waxbarashada iyo hay'adaha samafalka inkastoo uu xasan sheekh maxamuudna uusan ahayn shakhsi iminka isbarteen ee uu ka mid ahaa xisbigiisa UPD in muddahan isla soo shaqeynayeen waxaana la sheegayaa in ay tahay mid xasan sheekh maxamuud oo aqoon dheer u leeyahay waxaana deegaanka ee doorashooyinka iminka uu ka soo dhex muuqday xildhibaanada baarlamaanka 12aad uu yahay mid ka soo baxay dhanka iyo waliba Jubbaland isla markaasina la sheegay kursiga oo ku soo guuleystay inuu ahaa mid
oo ku matalayay axmed madoobe oo marka dhanka kale loo fiiriyana uu adeer ugu yahay. deegaanka garisbaale ee duleedka muqdisho maanta waxaa soo gaaray kumanaan dad barakacyaal ah oo ka soo barakacay gobolka shabeelle hoose abaarta ka jirto kadib markii beeraha iyo xoolaha ay lahaayeen ee gilaafatay abaarta biyo la-aanta ay ka jirto halkaasi ayadoona intay waddada soo socdeen la sheegay in ay jiraan dad u geeriyooday haraad iyo baahi isla markaasina ay maanta soo gaareen duleedka ee magaalada muqdisho deegaanka garisbaale halkaasi oo kormeer uu ku tagay guddoomiyaha iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkiisa waxaana halkaasi kula hadlayn dad fara badan oo dadkii ka soo faraxamay abaarta ka jirta gobolka shabeellaha hoose waa kuwan qaar ka mid ah dadkii maanta halkaasi guddoonka kula hadlayay warbaahinta. biyo la'aan hore waa noo dhammaadeen agoonaa qabaa naftay gabartay ka dhimatay agoon yaryar haddaba weli waa baahan wax uuna qabna ma jiro waa u jeedaan waa arkaysan musqul la'aan waay gogol la'aan waay cuntii la'aan waay wax idinka leedin sheegay ma jiro guddoomiye maanta waa arkaysaa ummadan macluulsan oo maanta dad u baahan horta dhibkan ilaahay dadka bixinayo inaa idinka noo gargaartaan maamadan garab joogsataan ayadana mana cawi maalin waa ordu haysaa awo hurdu mala maalin hergal mala wax mala aniga noo ordu haysaa khayr allah hasiyo ajar ee sanad allah hasiyo idinkan kaalinkiina guta ilaaha noo gargaar ha ka imaan hoola waa igu baaba'ay lo iyo eri iyo wixii bees la geliyay biyo la'aan baad la'aan gaajo maacuun. guddoomiyaha deegaanka garisbaale oo halkaasina warbaahinta asigana kula hadlay ayaa wuxuu fariin u diray maamulka gobolka banaadir iyo deeq-bixiyaasha in dadkan gurmad degdeg lala soo gaaro inaan dib u dejin u samayno dabadeedna muxuu ahaay maamulka naga sarreeyo gobolka banaadir aan fariintayna gaarsiino asagana oo u sii qayladaansho hay'adaha caalamiga ah iyo asaga laftirkiisa wuxuu qaban karaya muxuu ahaay cid walba oo muxsiniina oo ilaahay wacsiiyay inay dadkan gargaarto sababtoo ah dadkan waa dad Soomaaliyeed waa dad dhibaataysan dad macluul hayso ma galaan deedeeshi waa dareemi kartaa qof bilaadan hoon ilaahay ku idmaayo cawi laba maalmood iyo laba habeen aanan waxba cunin waa dareemi kartaa dadkan waa aniga muhiimadeen waxay tahay dadkan wax allaah wixii la soo gaarsiin karo haday bacad tahay haday hooy tahay haday musqulo tahay haday tahay raashin ilaahay ku idmaayo. kulankiisa 11aad kalfadhigiisa koobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 11aad ayaa maanta ku yeesheen villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaana kulankaasi shir gudoominayay Sheekh Aadan Madoobe asigoona sidoo kale goobjoog ahayeen ku xogeynadiisa kulankii furitaanka ayaa marka hore waxa ka hadlay Sheekh Aadan Madoobe aad u maartay idinku adkaynaynaa inaan xoqoorso inaan dhigno oo ka bedelan wixii baarlamaanka lagu bartay oo leesinimo inaan ka baxno hadda maartay waa 4 saac maanta shirku waa noo furmay sidii la rabay waa tahay marka arintaas lagu dadaalo marka waxaan guud galaynaa ajandahani aad iyo aad u mahadsantihiin marka xildhibaanada sharafta leh waxaan rabnaa dhowr qofood oo isku bedesho waxaan noo harsan heer hoosadkii 63 qodob taasi kadib mudanayaashii baarlamaanka ayaa gudagalay ka doodista ayagoona qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee soo istaageen ay ka jeedinayeen ka doodista qodobka ajandaha ee laga doodayo. number 6 guddiga xaqiiqa raadinta dib u heshiisiinta iyo hanti soo celinta wuxuu u xil saaran yahay ka baaraandegida iyo ka tala bixinta shuruucda la xiriirta hawshooda b xaqiiqa raadinta ku saabsan xadgudubyada ka dhaca wuxuu u sii gudbinayaa xukuumadda iyadoo lagu wargelinayo inay ku soo jawaabto 30 maalmood gudahood. ugu dambeyntiina waxaa soo xiray Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe guddoomiyaha baarlamaanka kaliya waxaa noo haray inaan guddi magacaabno guddigaas ka soo baaraandegi doona waan lagu soo celin doonaan marka fadhiga xigo ayaa guddiga magacyadooda keeni doona fadhigeena maanta waa noo xiran yahay aad dhanka kalena baarlamaanka golaha wakiilada ee maamulka Puntland kalfadhigiisa 11aad ayaa maanta hadal waxaa ka jeediyay Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha maamulkaasi wuxuuna sheegay waxyaabihii uu qabsoomay iyo qorshayaasha hor yaallo 19 Abriil 2022 safar shaqo ku tagay magaalada Muqdisho si loo sii wadi lahaa geedi socodka doorashada dalka halkaas oo aan ka mid noqday musharaxiintii u tartantay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa inaan uga mahadceliyo mas'uuliyiintii iyo shacabka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaalidii kala duwaneyd ee had iyo jeer taageerada ila garab taagnayd. Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay
gudoomiyaha ururka ONF ee ka dagaalanta deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xubno kale oo wafdi oo la socday ayagoona gudoonka ugu mahadceliyay Roble xukuumaddiisa sida liiska argagixisada ee kaga saartay ONF iyo sidoo kalena sheegeen sida ay u garab taagan yihiin. Roble ayaa dhankaasi kaga mahadceliyay kulankaadin ayaa ku soo beegmaya xilli deegaankaasi mas'uulku uu noqon doono shakhsiga bedel rabo Roble. ergeyga gaarka ay u qaabilsan dhanka bini'aadanimada ee gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno kale oo ka tirsan wafdi ah gaar ahaan hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxay gaareen degmada Buuloborti ee gobolkaasi Hiiraan maamulka Hirshabeelle waxaana socdaalkiisa uu ahaa sidii ugu soo kurgali lahaa xaaladda bini'aadanimo ee ka jirto halkaasi waxaana halkaasi uu kula kulmay dadkii qaar ay abaarta ay soo saameysay ayagoona halkaasi ugu warbixiyay. magacaygu waxa waaye Maryan Aadan Bijiin waa soo baan ka imid wixii waxaan ku noolay xoogan ku noolay markii joornaati helo wala xan helay markii joornaati waayana waa iska qadaybo waana ii jeedaa dhibkaygiisayna ii jeedaa dhibaato agoomana hanaysta oo 7 canug ah xoolo yara ii joogo kisriya waa iga dhamaadeen kisiro saca kisriya ii joogo abaara iga dishay waa iga ba'een. ergeyga gaarka ee gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa fariin u diray kooxda maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab inay furaan wadooyinka si dadkaani abaarta ay saameysay gurmad loo soo gaaro. mas'uuliyaddaas idinka iskale islaamnimo ma aha diin ma aha akhlaaq ma aha damiir ma aha soomaalnimo ma aha intaba wax isku fala ayaa leenahay dadka ka qaada cunaqabataynta ka qaada. ugu dambeyntiina suxufiyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho ayaa maanta magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Xamza loogu yeerin villa Soomaaliya ayagoona laga hor istaagay waxayna sheegeen in lagu ballamiyay markii hore hotelka Iswaa'il halkaas laga soo qaadayo balse muddo dhowr saacadood markay joogeen markii dambe ay soo baxeen markii madaxtooyada ilankeeda hore imaadeen loo diiday inay gudaha u galaan balse ay arkeen live-ka villa Soomaaliya ee lagu tabinayo ku dhawaaqaysta madaxweynaha ku dhawaaqayo ra'iisul wasaaraha cusub. qaar ka mid ah suxufiyiinta ayaa waxay halkaasi ay dareenkooda kaga hadleen waa kuwan qaar ka mid wariyaasha oo ka hadlay. waxaan ka wada helnay page-kii ama bartii Facebook-ga ee madaxtooyada oo live ah oo madaxweynuhu uu hadlayo ra'iisul wasaaruhuna ku dhawaaqayo. saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee isugu jira warbaahinta caalamiga iyo kuwa gudaha ama localka ah halkan ayaa lagu lugooyay intii aan soo socnay ilinkii labaad markaan marayno ayaa waxaan ka aragnay baraha bulshada waliba villa Soomaaliya markaasi live madaxweynihii oo ku dhawaaqaya. Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa maanta magaalada Ceergaabo wuxuu kula hadlay dad shacab isla markaasina ka hadlay dhacdadii ka dhacday magaalada Nairobi ee ambaasadorada dawladaha caalamka halkaasi fadhiyo uu yeeray Uhuru Kenyatta isla markaasina safiirka dawladda Soomaaliya uu fadhiyo Nairobi tarsan uu ka xanaaqay kadib markuu ku arkay shakhsi la sheegay inuu yahay mid matalaya Somaliland wuxuuna sheegay inay tahay mid ugu baahan balse uu ka warsugayo hadalka ay ka hadli doonaan dawladda Soomaaliya. ninkii ambaasadorka uu ahaa Soomaaliya shirka uu ka carado uu ka baxay isaga oo leh annaga iyo Soomaaliland meel ma wada fadhiisan karno. horta waa arrin ugu baahan intay Soomaali jirtay qof Soomaaliyeed ama waxgarad Soomaaliyeed oo goob fadhiya oo nin Soomaali ugu yimid inuu salaamo u qadariyay dadka iska xigsadaan mooyaane nin Soomaali oo nin Soomaaliyeed ka doonaya meel la fadhiisan maayo. horta xaajaasi waa ugu waxaanu ka warsugaynaa. guud ahaanna intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa qodobadii dhowrka ahayd ee Doobiye Media Doobiye kala socoteen aniga Muuse Maxamed Cali aan soo jeedantay mar kale sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.